بسم الله الرحمن الرحيم وأستاذ عبد الفتاح أبو النور وإذن بلابي دونا The Right Manager seminaarka maamulaha saxda ah marka hore haddaan iskaga baro waxaan haystaa shahaado degree oo accounting oo Camud University Boram. waxaan kaloo haystaa master oo Kampala University ah oo finance ah. Coursekan aniga ayaa idin wadaagaya as well as waxaan ahay managerka caawiya online school. marka waxaan idin sheegi doonaa processki aan soo maray. hadda ka hor waa liisoo manager waa lii noqday manager xun iyo fiican ba waan arkay. marka intaasaan idin wadaagi doonaa insha Allah. The Right Manager seminaarku day 1 waxaan qaadanaynaa Tell who managers are. Manager waa ayo, where they work, halkay ka shaqeeyaan. Day 1. Day 2 define management qaadanayna definitionkiisa. Day 3 waxaan qaadanayna describe what managers do. Managerku waxa uu qabto, howlaha uu qabto laga rabo ee managerka saxda ah. Explain why it is important to study management. Sharax management wuxuu yahay, maamulaha wuxuu yahay. maxaa sababta loo barto aan ujeedaa sababta loo barto maamulaha waa kuwa kalena waan anaa idin soo sameyn doona. marka intaan day ayaa idin sameysan. Why? Tell who managers are. Waa ayo managerka and where they work, halkay ka shaqeeyaan. Managerku waa midka u dhimriya shaqaalaha. Managerka waa midka u dhimriya shaqaalaha ee garanaya hadafka shirkadda, the goal of the organization. hadafka shirkadda waa in ay qanciyaan customerkooda qancintooda waxay ku xiran tahay sida ay u qanciyeen shaqaalahooda. shaqaalaha shirkadda markay qanacsan yihiin ay faraxsan yihiin ayaa wax fiican la soo saaraya. dabcan managerku waa midka garanaya shirkadiisa sida u soconayso. Where they work, halkay ka shaqeeyaan. Manageradu waxay ka shaqeeyaan meelaha manager u baahan sida organizationada, institutionada, macaadiyada iyo meelo fara badan ayay ka shaqeeyaan. Managerku maaha autocratic ama mid adag, maaha autocratic leader ama ku kale maaha. Managerku waa mid u dhimrin badan oo shaqaalihiisa iyo dad walba oo jooga oo dhimrinaya. halkay ka shaqeeyaan. su-aasha kale waxa where they work, halkay ka shaqeeyaan. manageradu waxay ka shaqeeyaan dee waatii haddaan soo sheegno meelahaas ka shaqeeyaan. marka waa si casharka aan sii gudagalno. marka ugu horeyso who are managers, where do they work. Organization waa maxay? marka horeyso organization waxa weeyaan waa purposeful, yani deliberate, purposeful, yani ujeedo isku hagay oo dad isku geeyay oo maxay ka wada shaqeynayaan specific purpose leeyahay, ujeedo gaar ah. Organization waa group of people, dad isku tagay weeyaan, to perform a specific tasks. waxay qabanayaan task oo yani gaar ah, isla wada garanayaan hal hadafna isla gaarayaan. kuwaas waxaa la raada organization waxa weeye waa dad isku tagay waxayna leeyihiin hal ujeedo inay gaaraan. tusaale ahaan ujeedadu waxay tahay haddii aad tahay jaamacad, ujeedada waxaa tahay inaad soo saarto arday wanaagsan, inaad soo saarto oo suuqa gali kara oo iibsamay. marka organization waa dad isku tagay oo hal hadaf leh ayaa organization la raada. maxaa lagu gartaa organization? halkan in organizationkaaga ku cabir kani. hadda organization leedahay ku cabir. haddii dadka leeyihiin waxaad tiraahdaa hadda waxaad baratay waa ilaan hadhow waxaad leedahay organization ma tahay. intaan haddii aan kaa helo organization aad tahay. intaan haddaad ka hesho organization waa la soo. hadduu hadaf leeyahay goal, hadaf hadduu leeyahay, hadafka organization kasta waxay leedahay hadaf gaar ah leedahay. haddii aad tahay stationary, hadaf gaar ah leedahay waa inaad waxyaalahan meeshaan soo dhigaysid aad qaybisaa, distribution ku samaysa, meel walba aad geysaa. haddaa school tahay hadaf aad leedahay.
oo ah inaad ardaydan soo saarto dugsi sare arday fiican oo suuqa galay. Organization kasta waxay leedahay hadaf. hadduu hadaf lahayn organization ma aha. Organizationku waa in laga dhaxela people, dadkaas waa ayo dadku waxa weeyaan waa managerada meesha ka shaqeynaya, maamulayaasha waxa weeyaan shaqaalihii kala accounting iyo meelaha kale xisaabiyaha iyo ahaa meesha joog, waa maxay dadkan kale dibadda ka imaanaya customerka wax ka iibsana, waa in dad laga helaa. Organization without the people is not organization. Organization oo dad aanan lahayn, aan dad ku jirin ma aha organization, ma aha. Structure waa inay qaab leedahay. Structure-kan wax weeyaan si u kala horeeyaan top ninka ugu sareeya, dadka ugu sareeya, middle, kuwa dhexdhexaadka, kuwa u hooseeya lower level, waa in laga helaa saddexda qaab. Structure waa inay leedahay board of director, madaxdii oo shirka isku darsatay ama madaxdii kale ay kuwa shirka isku darsatay doorteen. Manageradii meesha ka shaqeynayay, division kuwa dhexda ku jireen, mujeda oo accounting-kii iyo production-kii kuwa wax soo saarka ka shaqeynaya. waa in structure laga helaa si loo kala weyn yahay yani oo amarada loo kala qaataa. Leeyahay structure waa inay leedahay. haddii intaan leedahay, this is organization. waa organization waa fahmay. haddii su'aalo jiraan way soo weydiin doonaan. Three characteristics of organization. waxyaalaha lagu garto organization waa kamar waa goal, hadaf, mujeda from A to B. meeshaasaan ka kala qaaqayna, meeshaasaan tagayna. haddaan iskuul nahay waxaan noqonaynaa jaamacad, caawiyo online school oo kale. hadafkiisu waa 2018 inuu noqdo university, saas oo kale waa hadaf. People, dad waa inay meesha ku jiraan, dad shaqeynaya oo shaqoomaada, dad wax ka iibsanaya, waxaasoo dhan waa inay ku jiraan. dad xiiseynaya inay wax ku darsadaan, magaciisa share investors, dad creditors oo deyn laga qaado, dad waa in laga helo. Structure ujeeda si u kala horeeyaan, yaa ugu sareeya, yaa ku soo xiga, waa in laga helaa organization. labadan nin managerial iyo managerial maxay kala duwan yihiin? nin managerial waxa weeyaan dadka aan manager ahayn. managerna waa manager. nin managerial waxa weeyaan dadka ka shaqeynaayo shaqada, howsha qabanayo, mujeda ayagu shaqadooda ma eegayaan, shaqo qabanayaan. shaqadooda waxaa eegaya managerka eegaya. waa employee, shaqaalihii dadkii direct howsha uu qabanayay. haddii aad accountant tahay, xisaabihii ayaad qabanaysaa, ma tiid manager. waa lagu xukumaya qofka ka weyn ka sare ku dhahay xisaabta maxaa soo gudbin weyn, mujeda waa associates iyo team members, dadka caadiga teamka ka shaqeynaya howsha isku dowladaya waxaa raacdaa maxay nan manager iyo employee. marka nan manager waxa dadka howsha wada. managersna waxa dadka organization-ka jooga ee hagaya activity of others, shaqooyinka ay dadka kala qabteen. shaqada dadka kale ay qabteen ninka fiirinaya ee dhahaya adigu meeshan waa qaladay, adigu meeshan waa saxday, adigu good ayaa tahay, manager weeyaan. manageradina hadda Soomaaliya ka jiro good lagama helo. maanta dhan way ku qeynaa waa qaladay un bay taagay, waa qaladay un bay taagay. marka waxa laga labada dhinac inuu manager ahaa. good inuu dhaho markuu wax saxo, markuu wax qaldan uu dhaho no ka dah sidaan kale. the more aad shaqaalihii u dhimriso, the more ay shaqadiisa fiican u qabtaan. the more shaqaalihii ku istaagto, the more shaqadaada kaaga leeyahay. managerka saxda wax weeyaan kan shaqada dadka inta u tago ku hagaya dhahay meeshaan sidaan ka dah sidaan kale. khayr ila maro wax uu qaldi karaa waa bini'aadam qof oo tagaysa waxa leedahay meeshaan sidaan laga maraynin sidaan kale. qofkii saxayna ma sha Allah sidaan ku wad. managerka saxda waa ka managerka saxda waa midka ku dhex jira shaqaalaha mar walba waxyaalaha dhibaatadooda wax dhan saxaya. dib hadduu soo qabsado ka saacidayo waxa sabnaa laga rabaa manager. nin manager employee waa kuwa shaqada wada. managerkan waa dadka shaqada wada, qofkii ku sii hagaaya dhahay waxaan qaladay iyo waxaan sax. management level ayaa kala jiro. management waxa loo kala qaybiyaa top managers, kuwa ugu sareeya xagga sare joogaan amarka dhanka soo gasho, middle kuwa dhexdhexaadka jooga, first line manager kuwa howsha wada, iyo non manager employee
kuwa yaryar shaqaalaha yaryar haddii uu yahay gaari gacan le uu yahay shaqaalaha yaryar. marka manager top manager jiro kuwa amarka sare ka imaada. middle manager kan wax waa kuwa divisionada ama qaybaha shirkadda madaxda ka accounting-ka madaxu leeyahay, HRM-ka xafiiska HRM-ka ee shaqaaleysiinta wuxuu leeyahay maxay madax ayuu leeyahay, xafiiska production wax soo saarka madax ayuu leeyahay. kuwaas weyn first line manager-na waxa waa kuwa salesman-ka oo kale oo shaqo qabanaya iyo howlaha yar isku dabaridaay. manager employee kuwa kasii hooseeya ee shaqooyinka yar qabta production-ka gala engineeradii oo yaraha hawsha qabanaya ayaa maxay manager employee. management-ga level-kaas ayuu leeyahay, waa la kala sareeyaa meelana la kala sareynin wax ka socon maayo. manager-ka shaqadiisu waa inuu freedom u ahaadaa oo laakiin yahay the right manager-ka saxda ah waa inuu yahay manager oo shaqaalaha ku tumanaya oo howlahooda iyo this is not manager. Okay, what title do managers have? Manager what make decision. Top manager maxay qabtaa make decision about the direction of the organization. waxay gaaraan go'aamada organization-ka laga rabo. yani waxaan la qabto ma la qabanayo ninka dhahayo top manager kuwa product cusub la soo saaray ninka dhahayo productgaas cusub uu fiican yahay halawado waa top manager kuwa sida president, chief executive officer, vice president intaas oo dhan waa top manager kuwa. middle manager waxa manage activity of the other managers. yani manager ka hooseeyo ayuu activity-gooda saxaya sida district manager oo division manager qaybaha manager-ka oo joogaan tii hadda ayaan soo sheegeen accounting-ka manager-ku inuu leeyahay kuwaas. first line manager waxa weyn direct non manager kuwa manager hoose kuwa hagaya waa supervisor-ka oo kale iyo team leader-ka. team hadday jiro qofka madaxda oo kale qofka hagaya waxaa la dhahdaa first line manager. haddii uu koox jiro ka madaxda iyo supervisor-ka oo howsha dad kasta ku hagaya ayaa waxaa la dhahdaa first line managers. manager-ka saxda ah waa manager-ka fiiriya shaqada ay wadaan shaqaalaha. cashirka haddii su-aal ay jiro waa la soo dhigi karaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.